sheekh Bashiir Axmed Salaad oo u waramay wariyaha BBC-da Axmed Maxamed Ibraahim Axmed Nagaashe oo marka hore weydiiyey waxa uu ku saabsan yahay bayaankoodu. Bayaankan wuxuu bayaan ku saabsan firqadan ama kooxda cusub oo soo baxday oo la magac baxday asaabiuna bil xaqi oo macnaheedu yahay kuwa xaqa maaragtay la jahrayaan kuwa xaqa kor ugu dhawaaqaya maadaama diin ay ku aftirsanayaan iyo dacwo oo arrimo diin ay ka hadlayaan oo shacabkuna hadee umada ka warsugayaan ayaa rabnay inaan u cadeyno shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan iyo guud ahaan caalamka Islaamiga nimankan waxay yihiin waxay aaminsan yihiin iyo aragtida diineed ee ka duulayaan. Marka aragtida diineed ay ka duulayaan maxay tahay aad ku qoonsateen? Waxaan ka hadalnay fikirka nimankan ay ka duulayaan inuu fikir takfiiri yahay oo maaragtay ku salaysan in mujtamaca muslimka aragti madow lagu eego oo maaragtay waxa khayrka oo jira iyo islaamka jira iyo diinta jirta oo dhan badal lagu shubo oo dad diintii ka tagay laga soo qaaday inay yihiin oo dad ku noqday gaalnimo iyo maaragtay jahiliyad ay yihiin taasoo macnaheedu yahay in dadka muslimiinta oo shahaadanaya tirada ka batay maaragtay la gaalaysiiyo haddii qofka la gaalaysiiyana waxaa ku dhici kara qofka in diinta la banaysto waxaa ka imaan kara marka khatartaas noo muuqatay baan ka hadlayno laakiin dadka dilaya oo dadka gaalaysiinaya horeba way u jireen maxaa kuwa uga hadli weydeen kuwan cusub ee ilaa haatan aan odhanin waxbaanu dilaynaa uga hadlaysaan haddaanu miyaan aamusnayn anu intaa waa hadlaynay maaragtay kuwa wax dilay kuwa wax dilinba cid kasta oo diinta khatar ku ah oo maaragtay caqiidada dadka muslimiinta Soomaalida ah iyo maaragtay dhaqankooda wanaagsan khatar ku ana waa ka hadalnaa dadkan la xusuusiyo khaladaadka nimankan ay ka duulayaan maxay hadalkooda hadalla macaan oo maaragtay aad urdu fasaxa badan baa ku jira marka malaha hadalkooga macaan un baa qoonsateen ujeedadiinu ma waxa weeyaan in idinku dadku idin dhageystaan maya midaas ma aniga dadnimada ma mihin laakiin culimada maaragtay diinta Soomaalida dadka wax u sheegaan kaliya culimo ma mihin maaragtay laakiin yani hadda dadka hadlayay oo aan khaladaadka diinta laga galo ka hadlayay ama wixii soo jariyo cusboonaada maaragtay aan ka jawaabayay rag anaga naga mid iyo anaga bay ahaayeenba marka waxa anagu ma jiro masaaro baan gudaynaa ma aan oran anagu maxaan ku yaraa maaragtay waxa lagu soo diiray dana gaar anaga leenahay Sheekh Bashiir waxyaabaha keena isku dhaca iyo inay ummadu fawdo ay soo dhex gasho waxa kamid ah in dadka la diido aragtida kale dadka qaba inay aragtidooda soo bandhigaan wixii hadii ay tahay diin oo ay dadkana culimo yihiin inay soo bandhigaan aragtida ay qabaan maxaa ku diidantiin hadda waxa soo bandhigayaa soo inay xad yeeshaan ma diinta xad beelay qofkii diin ku hadlaya xad buu leeyahay qofkii rabo iska hadli kara laakiin qofkii diin soo bandhigaya diintu waxa ay tahay waa la isla yaqaan diinta wax kasta laga been sheegi karo ma aha wax qofka soo rabo ka yeeli karo ma aha qofkii fikir kale soo bandhigaya wax kale ka hadlaya waa baab kale laakiin qofka diin ahaan soo bandhigaya oo diinta saas beelada oranaya hadda diinta waa la yaqaanaa wax la waardiyeeyo diinta ayaa u qiimo badan Sheekh Bashiir waxa tiri diintaanu anagu waardiyeynayna idinku ina diinta waardiyeysaan yaa idin xil saaray miyaase ka xigtaan iyaga anagu diinta waxaan loo xisaaray maadaama aan maaragtay culimadii dalka maaragtay aan ka mid nahay ama yani culimada hadasho diinta difaaca qayb weyn oo kamid ah anagu aan nahay maaragtay inaan hadno waa ku khasbanahay anagu marka hadda qaadashadan hadda Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa tawfiiq bixiya marka daayiga way hadleen sidoo ma aamusin hadda ayagu hadleen maxaad idinkan u hadasheen ma ogtahay in la yiraahdo waa ayaga hadlo bilaabay marka ilaa hadda waxaan daala dhacaynaa waa dad magaalaysiiyay baa diideena banaysanaya marka kuwa kala dad magaalaysiiyay soo baxaan hadda dibkii ziyaadiya soo ma aha gudoomiyaha majmaca culimada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo u waramay wariyaha BBC-da Axmed Maxamed Ibraahim Axmed Nagaashe ayuu kaasi ahaa.